dawladda Ruushka ayaa indhaha ku haysa inay dekada Berbera ka samaysato saldhig military. wargeyska caanka ah ee The New York Times ayaa cadadkiisii shalay waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay Ruushka oo saameynsi kordhaysa ku leh Afrika iyo reer galbeed badan oo ka warwarsan. waxaana warbixintaasi lagu sheegay in dalka Ruushka uu xidhiidho badan la sameeyay Afrika kuwaasi oo uu kaga samaystay kalsooni. wargeyska oo soo xiganaya sarkaal Mareykan oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka waxa uu sheegay in meelaha uu Ruushku isha ku hayo ay ka mid tahay dekada Berbera ee Somaliland. sida ay sheegeen saraakiisha ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga madaxda Ruushku waxa ay isha ku hayaan dekada Berbera inay u noqoto goob ay kaga samaysan karaan saldhig xeebaha Somaliland oo dhaca gacanka Ciidan. Shiinaha iyo Mareykanka oo saldhigyo ciidan ku leh dalka Djibouti ayaa xeeb la wadaaga isla dekedan Ruushku doonayay inuu saldhig ka samaysto ee Somaliland. wargeysku waxa kale oo uu sheegay in Ruushku uu muujiyay inuu doonayo inuu xarumo saadka ciidanka ka dhista dalka Eritrea, laakiin saraakiisha Mareykanku waxay aaminsan yihiin inaanay weli cadayn inta ay qoto leeg tahay wadaxaajoodyada Ruushka iyo Eritrea ee arrintani ku saabsan. warbixintu waxa ay sheegtay in saraakiisha Mareykanku ay lafagur ku sameynayaan waxa ay ugu yeedheen tartan weyn oo awood ah, waxaanay sheegeen inay si dhow la socdaan saameynta Ruushka ee sii kordhaysa ee Afrika iyo weliba dalka Shiinaha, iyadoo Washington la halgamaysa himilooyinka dhaqaale iyo amni ee ay la leedahay qaaradda Afrika.